Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nabaday daawadayaal idilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenii duurjoogta. Barnaamijkeennan duurjoogta waxaynu ku soo qaadan doonaa raxan libaaxi ah kuwaasi oo ka kooban 12 libaax. sidoo kalena isugu jira aarar iyo weliba goolo. Raxantan ayaa ah qoys iyagu isku duuban oo weliba si isku duubnaana u ugaarsi taga. Gooshan aynu arkayna waa gool yar oo dhowaan u dhashay, waxaanay imaka haysataa cagabaruuro, balse cagabaruuradu hadda halkan ma joogaan oo way ugaarsi tegayaan oo waa xilligii ugaarsiga. waa xilli hore waana salaad hore. Durba waxay samaynayaan in ay cidiyahooga ay nadiifiyaan, iskuna kala bixiyaan geedkan si ay uga qaataan furfurnaan. Qoyskan waxaa ka mid ah aarar aan weli la eryin oo aan qaangaadhin. Aarka marka uu qaangaadho waa laga eriyaa kooxda oo waxaa loo eriyaa in uu samaysto meel u gaara iyo weliba dhul u gaara oo uu leeyahay isagu. Aararkan ku jira kooxda weli may gaadhin xilligii la eriyay. Xilligan waxaa loo diyaar garoobayaa sidii loo ugaarsi tegi lahaa, laysuna diyaarin lahaa ayay kooxdu isu diyaarinaysaa iyagoo weliba 12 koogiba ay joogaan goobta. Durba waxaa la galay raadinta cunto sidii loo raadin lahaa ugaadh ay ugaarsadaan ayaa durbadiiba ay bilaabeen raxantu. Dhulku waa iska oomane, ugaadhuna way ka fogaatay dhulkan. Ugaadhu waxay tagtay dhul biyo leh ama meelaha ay biyuhu ku sii jiraan, cawskuna uu sii qoyan yahay ayay iyagu u durkeen. Way daba socotaa waana ka daba durkaan mar kasta oo ugaadhu durugto. Gooshani dareen ayay qaadatay, waxaanay durba urisay ugaadh ka mid ah ugaadha. Raxanta laftigeeguna iyaguna waxay uriyeen wixii ay dareentay gooshu. Durba waa la yaacay oo raxantii libaaxyada ahayd waxay galeen in ay ugaarsigii bilaabaan. Goosha ugu yar raxantan libaaxyada ah
ayaa iyadu hogaaminaysay howlgalka maanta, waxaanay ku guulaysatay inay la-ogisidan qabato. gooshan ugu yar laftigeegu waxay u tahay tababar ay ku tababaranayso sidii ay u bakhtiin lahayd la-ogisidan. dusha ayay kuwa kale uga baxayaan si ay culayska ugu caawiyaan oo ay u ridaan, maadaama uu yahay ilaa 1,000 kiilo culayskiisu. haddeer way rideen oo dhulka ayay dhigeen. waxaa u harsan oo keliya in ay naqaska ku sii dejiyaan oo ay dabadeedna cuntadoodii halkaa ka bilaabaan. kooxdu si wadajir ah ayay isu caawinayaan goolaha iyo weliba aararka ku jira. faamiligan ama raxantan 12 ah waa ku filan tahay cuntadan ay maanta heleen, waxaanay u heleen si nasiib ah. la-ogisidanu waxay ka hadhay la-ogisi kale oo iyagu daaq tegayey, isagu aan dhaqaaqi karayn oo isagu luka jaban, taasi oo ay heleen in ay ku guulaystaan maanta cuntadoodii, nasiibna u yeeshaan inay bannaanka helaan aanay joogin la-ogisidii kale. haddii ay la-ogisida kale joogi lahayd waxay ku soo qaadi lahayd dagaal, kaasi oo faraha la iskaga guban lahaa, oo aanay u oggolaadeen in ay la-ogisidan cunaan raxanta libaaxyadii, walow ay raxanta libaaxyadii aad u fara badan yihiin oo ay ka kooban yihiin 12. 12kaas oo kala ah aarar iyo weliba goolo. aararka laftigooda waa aarar xooga oo iyagu inay qaangaadhaan dhow. amaba qaangaadhkii wax yari uga harsan yahay. qaar ka mid ah aararka ayaan oggolayn in halkooga lagu soo doonto, kuwaasi oo ay dhashay goolahan goosha ugu weyni. mid waliba halkiisa ayuu ka gelayaa oo wixiisa ka cunaya, isagoo aan meel kale u tallaabayn. maantana cuntadani way ku filan tahay raxantan libaaxyada ah. raxantii wuu ku filnaaday
midkii la ogeysidaha. bil ka bacdi ayaa haraadigii halkaa ku hadhay. Waxaa haddana Ilaahay quud uga dhigay qayb ka mid ah shimbiraha sida bahalka la yidhaahdo gorgorka iyo weliba dacwada. Xayawaanba xayawaan ayuu ku daba nool yahay. bil ka hor xayawaankii ay cuneen ama la ogeysidii ay cuneen raxantii ka koobnayd 12 ayaa maanta waxaa haddana quudanaya qayb ka mid ah noolayaasha Ilaahay. Raxantu way cabayaan oo biyihii webiga ayay cabayaan. Marka ay dhargaanna waxa ay sameeyaan waxay galaan nasasho aad u dheer oo way seexdaan, maadaama habeenkii oo dhanna ay ugaarsanayaan, maalinta inta gelinka horena laftigeega ay ugaarsanayaan. Marka ay wax helaan ee ay dhargaan waxay u seexdaan si cajiib ah. Qayb ka mid ah ayaa halkani iyagu ku nasanaya 12kii, halka qaarna ay seexdeen kooxdii libaaxyada ahaa. Maalmahan webiga ayay ku dhow yihiin waanay helaan wax maalin walba ku filan oo ay ugaarsadaan. Waa tahay daawadayaal, barnaamijkeennii intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Barnaamij kaloo xiiso badan intaynu ku kulmi doonno waxaanu idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo.